baab إida waafaqa ywم الجumcati ywma ciid maalinta jumcadeed hadday waafaqdo maalin ciid oo ciid iyo jumca ay kulmaan. can iyaas bni abi ramlah الshaamiy qaala shahidtu mucaawiyaةa bna abi sufyaana radي allahu canهuma mucaawiya ibn abi sufyaan baan la joogay wa huwa yas'lu zayd bna arqam isagoo su-aalaya zayd bna arqam radي allahu canhu qaala wuxuu ku yidhi mucaawiya ku yidhi zayd ashahidta maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama ciidayn ijtamacaa fii yowm ma la joogtay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam laba ciidood oo maalin ku kulmay qaala nacam qaala kayfa sanac siduu yeelay labada ciidoodna marka wuxuu ka wadaa ciiddii usbuuciga ahayd iyo ciiddii sanawiga ahayd buu ka wada ilan laba ciidood oo kale ee fitri iyo adxa ma kulmi karaan. qaala zayd baa wuxuu yidhi salla alciida ciiddii buu tukaday uma rakhasa fi ljumca jumcada dadka waa u ruqsadeeyey faqaala wuxuu yidhi siduu ugu ruqsadeeyey man shaaa an yusalliya falyusalli qofkii doona inuu tukado jumcadana ha tukado annagu waa tukanaynaa jumcada laba ciidood baa maalintan kulantay annaguna jumcada waan tukanaynaa qofkii doonana jumcada hanala tukado qofkii doonana ruqsuu qabaa ayuu yihi nebigu calayh isalaatu wasalaam. marka jumcadu waajib ma noqonayso hadday laba ciidood ay ciid iyo jumca ay kulmaan. can caطaaءi bni abi rabaaxin qaala صallaa bina bnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr ayaana tujiyey radia allahu canhuma fii ywmi ciid maalin ciideed buuna tujiyey fii ywmi jumcatin maalin jumcadeedna awala nahaar maalinta gelinkeedii hore barqadii ayuu ciidina tujiyey. ثuma ruxnaa ilى اljumca haddana jumcadii baan soo aadnay falam yakruj ilaynaa nooma soo bixin fasallaynaa wuxdaanan keli baan u tukanay yani duhr bay tukadeen. wa kaana ibnu cabaasin radia allahu canhuma biطaa'if ibnu cabbaasna طaa'if buu joogay falamaa qadima markuu yimid maka uu yimid dakarnaa dalika lahu sidaasaan u sheegnay iyaga oo ku tirinaya inuu gaf sameeyey cabdullaahi ibnu zubayr radia allahu canhuma. faqaala markaasu ibnu cabbaas wuxuu yidhi asaaba sunna sunnadii buu waafaqay yani waa hagaagsan yahay. marka nooma soo bixintaa waxaa weeyaan xataa duhr uma aanu imanin oo duhr ma aanu tujinin. marka taasna waxay laga qaadan karaya xataa duhurku inaanu maalinta aanu waajib ahayn ee jumcadii duhurka bedelkiisa ahayd iyo ciiddii intay isgaleen ciiddii ay ugu filan tahay. can caطaa ijtamaca ywmu jumcati wa ywmu fitr waxaa kulmay maalin jumcadeed iyo maalin ciidu fitri ayaa kulmay calaa cahdi bni zubayr yani fii imaarati bni zubayr radia allahu canhuma. faqaala markaasuu ibnu zubayr wuxuu yidhi ciidaani ijtamacaa fii ywmin waaxid waa laba ciidood oo maalin keliya ku kulmay fajamacahumaa jamiican labadoodiibuu isku daray fasallaahumaa waa tukaday rakcatayn laba ragcadood buu tukaday bukratan aroortii ثuma lam yazid calayhimaa waxba maanu ku darin xataa salla alcasra ilaa casrkii uu ka tukaday xataa duhurkiiba xataa maanu tukanin halkaa salaadeed ayaa maalintaa ku filan. can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam annahu qaal qad ijtamaca fii ywmikum haada ciidaan maalintiinantada waxaa kulantay laba ciidood baa kulantay faman shaءa أجزa'ahu min aljumca qofkii doona jumcada waa uga gudayaa waxaa uga gudaysa oo kaga filan ciidda wa inaa mujamicuun annagu waan jumcaysanaynaa yani jumcada waa tukanaynaa lakiin qofkii doona khiyaar buu leeyahay.